السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالق أمير الجود جوجتي waxaan idin rajeynayaa khayr badan channelka laga daawanaysa waa Faaduma Filsan qofka idin la hadlayna waa aniga Faaduma Filsan bashbashi barwaaqo idin rajeynayaa rabadaanta wax yar ayaa ka dhiman ilaahay khayr inagu gaarsiiyo ta kalena ilaahay sidoo kale khayr iyo bashbashi barwaaqo iyo nabad qab iyo caafimaad qab Allah inagu wada gaarsiiyo haddaad hore noola joogtay aad iyo aad u mahadsan tahay haddaad hadda nagu cusub tahay soo dhawow ayaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow subscribe to noo saar like ta dhac ku siiya asxaabtay daqaaliga maanta qisada aan ka sheekeynayno qisada maanta idin inoo hayo waxay ku saabsan tahay nin kawaala waxa la ninka hilibka qala ama geel ha qala ama lo ha qala ama ari qofka hilibka qala ayaa kawaala la dhahaa marka nin kawaala aan ba isagoo oo maalin jid maray ayaa wuxuu arkay laba nin oo isdilay deetana wuxuu siiri labadii nin kala qabo labadii nin wuxuu kala qabo isjiri boomidu intuu mindi iska soo jiro kii kala caloosha banaanka soo dhigay kii kala caloosha ku wareejiyay deetana ninkii war de sheekadii meel tala fara ka baxday meel wax ka qabto malaha ninka caloosha ka soo riday mindida galiyayna wuu cararay mindidiiba ninka ku jirta ninkii buu deetana ka daba orday markuu ka daba orday buu gaari waa iskaga soo laabtay ninkii meydka ahaa ninkii dhaawaca buu ku soo laabtay ninkii uu mindidii ka saaray warse wax ku gaadheen ninkii inuu caawiyo uu rabay bay dad kale meesha soo mareen meeshana meel cidla ayay ahayd deetana dadkii meesha soo maray adigu waxaa la war ninka maxaad u dishay ninkii oo mindidii gacanta ku haya ninkii kalena dhulka jifada calooshii already waa kasoo dhacday bay dadkii waxay dhaheen war ninka maxaad u dishay war ninka maxaad u dishay deetana isaguna wuxuu war wallaahi anigu ma aana dilin ayuu deetana adigu dadkii baa meesha kusoo shiray meesha meel dee shil ka dhacay intii qaylada maqashay intii uu agdhaweyd waa lagu soo yaacay ninkii meeshuna waa meel iska tuula deetana ninkii waxaa ku dhacday askar ayaa imaatay waa la xiray isaga ayaa la xiray maadaama isaga mindida lagu arkay ninka meydkaana isaga lagu arkay ninkii waa la xiray ninkii markii la xiray maxkamad ayaa la saaray markii maxkamad la saaray ayuu ninkii wuxuu yiri ninkii qaadiga ahaa wax aad isku difaacada ma haysataa maadaama de xaajadu maanta adiga ku haysato deetana isna wuu dhaartay wuxuu yiri war waan idin dhaaranayaa wallahi billahi baana dilin buu yiri waa dhaartay waxaa la yiri adiga dhaar lagama aqbalaye waxaad isku difaacada ma haysataa oo lawyer ma qabsan kartaa deetana wuxuu yiri maya aniga wuxuu yiri lawyer ma qabsan karo adiga ninkii waxaa la xukmiyey maadaama uu lawyer qabsanaynin waxaa la dhahay marka adig kaliya ma ahayd mindida ma haysatay adiga ninka kali ama ahideen ninkiina ma dhintay de qof kale lagu cadeyn kara ninkii dilay wuu cararay wax laga aqbalayo ma aha ala kulli xaal maxkamadda ninka waxay ku xukuntay in ninkan la dilo asagana la dilo ayaa lagu xukumay oo la daldalo deetana ninkii maalintii adigu xukunku dhacay daldalkiisu dhici lahaa oo la soo bixiyay oo meeshii lagu dilay lahaa la keenay ayuu wuxuu yiri war wax la igu cafiyo ma leeyahay waxaa la maya laguma cafin karo dadka ku sugaya waxay ku sugayeen adiga qoorta ka jaraan ninka halka taagan seefta haysta kow inuu kaasi adigu ku dilo uu ku sugaya waqtigaagina wuu soo dhamaaday deetana wuxuu yiri ninkii anigu wuxuu yiri waxaan idin ku dhaaranayaa saddex magac oo ilaahay baa idin ku dhaaranayaa bi waa wallaahi oo billaahi oo tallaahi baa ku dhaaranayaa buu yiri inaan anigu ninkaas dilin oo anigu ninka dilin laakiin maadaama aan wax cafisa lahayn oo kullay wuxuu yiri la idilayo qasa ayaa idin ka sheekeynayaa buu wuxuu yiri 20 sano ka hor anigu wuxuu yiri doon wata waxaan wadan jiray doontaas markuu wuxuu yiri meesha webi bay lahayd webigaas doontaas dadku qaada dhinaca kale u gudbiya markuu wuxuu yiri dhinaca kale u gudbiya deetana wuxuu anoo doontii ayaan ayaamaha ilaahay kamida ba waxa ay soo raacay biyo gabadh iyo aabaheed dadna wuxuu gabadh aad u qurux badan ayay ahayd deetana gabadhii wuxuu yiri waan ka helay adigu gabadhii xaafadoodii baan geeyay gabadhii iyo aabaheed gurigay galeen waan arkay maalintii dambe aan ka daba tagay buu yiri ninkii aabaheed ahaa baan u tagay waxaan yiri adeerow gabadhaada waan ka helay waana rabaa gabadha aabaheed markuu wuxuu yiri adeer wuxuu yiri
gabadh haddaad doonaysid buu dhahay saasoo kale looma soo doonto qaraabadaada la soo kaxaystaa tad keliga adoo socoto yubyub la imaato lama dhahuyo gabadhaadaan rabaa alreadyna hadda wuxuu gabadhan nin baa lagu daray oo maalintii aan kusoo maraynay aan soo qaadaysay waxaan ka imaanoo yiri gabadhan meherkeedaabaan ka imaanay gabadhan already waaba la guursado dhe tan waaba doonanta la guursaybe tu kale allah kuu calfoo dhahay laakiin haddii lacalla wuxuu yidhi aad gabadh doonanaysid tala ayaan ku siinayaa qaraabadaada kaxayso deetana adugu ninkii sidii buu kusoo tegay wuxuu yidhi gabadhii kama aana hadhin gabadhii calaa kulli xaal wuxuu maalin dambe oo muddo kasoo wareegtay ayadoo cunug yar wadata ayay doonta iisoo raacday deetna dad kaleba ma aana sugina waa la ordu yiri meeshii webigay buu kula dhex orday waan waday meel cidlaa markaan marayna wuxuu yidhi oo biyaha bartankoodii oo waxaan yidhi gabadhi aniga waan ku jeclahay waan ku jeclaaday de warkaas waxay tiri subxaan allah aniga waxaan ahay gabadh xaasa cunuga yar baan wataa heer baan leeyahay de wax kale allaha kuu sakhira ayay tiri deetana wuxuu yidhi aniga wuxuu yidhi shaydaani wixii ka qaalib noqdayba waxaan idhi buu yidhi cunuga yar ayaan biyaha kaaga dhex ridayaa haddii aada ogolaanin in aniga xumaan kugu sameeyo ayadana waxay weydiiday wixii cunuga yaraa baan ka dafay deetana wuxuu yidhi biyaha in madaxa u geliyaa saa dhahabiiba ogolaato hase dhih maya waan kasoo saaraa waa ku celiyaa wuxuu yidhi adi calaa kulli xaal say gabadhi maya iilahay ani wixii cunuga yaraa biyaha u gelinaya uga soo bixinaya galib cunuga yaraa ugu dhintay cunugii markuu dhintay gabadhi aad bay u naxday haba naxdee ugamuusa hadhine gabadhii ayaa haddana wuxuu yidhi intaan madaxa qabtaan biyihii daaq siiyo yidhi markaasaan u yidhi adigu waa inaad ogolaato haddii kale adiguna waa dhiman way diiday biyi labadoodiba sidii baan ku diluu yidhi gabadhiina sidii baan ku diluu dhah markay dhimato in biyihii baan labadoodiba wuxuu yidhi raaciyey oo intaan u tuuray biyihii ayaan wuxuu yidhi soo baxsaday markaan soo baxsaday waan soo gudbay tuuladan kale ayaa markii dambe saa ku imid markii dambe xataa shaqadaas wuu iska dhaafay oo maadaama doon ka shaqayn jiray wuu iska dhaafay wuxuu noqday kawaanle oo ninka hilibka qala ayuu noqday deetana wuxuu yidhi 20 sano ka hor dembigii aan galay ayaa maanta ilaahay i qabto yidhi maanta marka kama badbaadiyay laakiin qisadaas ayaan idinka sheekeynayaa waxa maanta la iga jaray ee maanta i haystuu dhahay waa 20 sano ka hor dembigii aan galow dhah adigu ninkii waa la dilay oo waxaa la yidhi adigu dembi gabadh iyo cunugeedii oo intaa dishay haddana aad biyaha sii raacaysa adigu ninkii waa la dilay kadib meeshuu isaga qisada isagu gabadha yar iyo wiilkeeda ku dilay waxay ahayn baqdaad waxaa la baqdaad baa laga baafiyey waa adigu dadkii warkii waa la wadooday waxaa la waqti hore ayay ahayd gabadhaas iyo wiilkeedii waa la waayey meel laguma sheego mar dambe ayaa waxaa la helay meel webi dhinaciisa adiga biyaha dhinacooda ah gabadha meydkeedii laga helay gabadha sidaa lagu aasay cunugii yaraana maba la arkin oo dib dambe looma arkin ninkii hiliblaha ahaa dulmigu inuusan marnaba una kaasoo daahaynin hadduu qofku qof dulmiyo oo uu dulmi sameeyo inkastaba waqti kastaba adu noolow ah kaa maqnaada laakiin maalmaha ka mid a dulmigaas adiga ayuu ku qabanaya asxaabteyda qaaliga taa waxaan ka fahmaynaa inuusan dulmigu ahayn wax fiican marka dhammaantiina khayr badan baa idin rajeynayaa aan si soo ducayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu